waxaa noqon doontaan ciidanka qaranka waxaad la xuquuq tihiin maanta laga bilaabo ciidanka qaranka ee jananku halkan ugu weyn yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ku guda jira safarka uu ku marayo gobolka Saaxil ayaa kormeer ku tagay dugsiga tababarada ciidanka militariga ee Cabdilaahi Feedhe ee degmada Sheekh oo tababar uga socdo dufcaddii koowaad ee ciidamada madaniga ah oo dhawaan la qarameeyay gaar ahaan ciidamadii madaniga ah ee gobolka Sanaag oo qayb ka mid ah halkan tababar militari uga socdo halka qayb kale oo ka mid ah ciidamadani uu tababar uga socdo dugsiga ciidamada ee bixin taliyaha ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Nimcaan Yuusuf Gaaxnuug oo madaxweynaha ku soo dhaweeyay dugsiga ayaa ka warbixiyay tababarka u socda ciidamada madaniga ah ee ka mid noqday ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland Maxamed Yuusuf isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahad celiyay fulinta mid ka mid ah ballanqaadyadiisii waaweynaa halkan waxa ku sugan dufcaddii koowaad ee ciidankii aanu qaramaynay sidii aad go'aan ku soo saartay in la qarameeyo ciidankii madaniga ahaa ee ciidanka qaranka barbar joogay muddadii uu ku jiray jiidda hore ee difaaca qaranka ay ku sugnaayeen ee loogu abaalguday inay la xuquuq la noqdaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxa ku sugan dufcaddii koowaad dufcadda koowaad wax ka koobnayd dugsiga Sheekh dugsiga bixin qaybtii koowaad oo halkan ku sugan ayaanu maanta madaxweyne u furaynaa muxuu ahaayay tababarkii madaxweyne sidaad ka muuqata ciidanka halkan jooga maanta waxay ka tirsan yihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland horena waxay ugu suntanaayeen family gaara ama cid gaara ugu suntanaayeen oo ay u joogeen jiida laakiin maanta halkan waxay ugu sugan yihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna ku noqon doonaan iyagoo sita calanka jamhuuriyadda Soomaaliland garabkooda uu suran yahay calaamadii ciidanka qaranku furomihii marka hore ay ku jireen iyagoo bilaa xuquuqa mudane madaxweyne sidaad ballan qaaday ee ku saabsanayd in ciidamada dalka dhammaantood la tayeeyo dib u habayn iyo casriyeyn lagu sameeyo ciidamada madanigaana la qarameeyo waa qaybtii ugu horreysay waa barbilowgii u horreeyey waxaana ka muuqataa muuqaal wanaagsan shalay siday ahaayeen iyo siday maanta yihiin shalay markaannu ka soo saarnay jiidda waxay ahaayeen dee waa ciidan kala kaana maantana waa ciidankaa yuniform kale u diyaarsan inay ka mid noqdaan ciidamada qaranka la xaqa oo la xuquuqa waa fursad dahabiya oo aanay in badan oo ka mid ah dhigoodu aanay helin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ciidamada madaniga la hadlayay ayaa sheegay in maanta laga bilaabo ay la xuquuq yihiin ciidanka qaranka sidoo kalena ay la bilaaban doonaan tirakoobka iyo tayeenta ciidamada qaranka oo dhawaan madaxweynuhu daafuray waxa faan u ah aniga iyo qarankaba shalay waxa ahaydeen ciidamada madaniga magaciinuha laakiin waxaan ku faanaynaa maanta ciidankuna ku faanaya inaad ka mid tihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland awoodeynta ciidanka iyo casriyeynta ayaa la bilaabi doontaan ciidanka tirakoobka la bilaabi doontaan waxaa noqon doontaan ciidanka qaranka waxaad la xuquuq tihiin maanta laga bilaabo ciidanka qaranka ee jananku halkan ugu weyn yahay iyo dhammaan saraakiisha kaleba insha Allah bari dhow waxaanu arki doonaa idinku alfaan iyo xarka iyo xidigaysita haddii alla yiraahdo sida la sheegay tababarka ciidanku u baahan yahay badho waa taqaaniin oo hawlo badan oo qaranka lagu difaacaya ka qayb qaadatay laakiin intii idinka dhinayd baa la idinku biirinayaa maanta waxa maanta ka mid tihiin cududda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaato waxaa kaloo salaamayaa dhammaan ciidamada kale ee iyaguna la qarameeyay iyo dugsiga jooga bixin iyagana si gaar ah u salaamayaa waxaan leeyahay kuwa hadhayna
yaan dugsiyada laydinka buuxinin waxaan idinku ammaanayaa inaad nasiib u yeelateen inaad noqotaan dafcaddii ugu horraysay ee ciidanka madaniga ahaa ee tababar rasmiya loo furo ee dugsiga yimaada dugsiyada kalena insha allah waa u diyaar ciidamada kale ee sugaya qaramayntana waxaan ugu baaqayaa inay iyaguna dhaqso u diyaargaroobaan si aan uga buuxsamin dugsiyadu iyo qaramayntuba waxaan u mahadnaqayaa jananka ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo wasiirka difaaca oo muddo bila ku maqnaa arrinta qaramaynta maantana halkan uu yimi inay nagala qayb galaan munaasabaddan haddana ku noqonaya gobolladii Sanaag Sool iyo Togdheer si ay u soo dhammaystiraan qaramaynta ciidamada madaniga inta harsan sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu si rasmi ah u dhagax dhigay dhismo casri ah oo lagu soo kordhin doono xarunta tababarada ciidamada militariga ee Cabdilaahi Fadheeye waa Idris Bershiya warbaahinta qaranka ee Somaliland Sheekh